dhowr iyo 10 shirkadood ayuu wada shaqaynayay mar kaliya iyagoon dhammaantood aan is ogeyn. ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Sohan Bareekh. waxa dhacday shalay toole internetka siduu u dhan yahay isaga ayaa haystay. sheekadiisu haddaba sidee bay u dhacday? ninkan waa nin dhalinyaro ah, waxa uu kaga qaylisiyey Silicon Valley. waxa uu sameeyey haddaba shirkadaha markaa isagu wuxuu ku shaqeeyaa remote work amaba shaqo meesha isaga oo aan joogin ayuu ka soo shaqeeyaa maadaama oo software developer ama coder u ahaa. waxa uu isku dayay inuu dabadeedna xareysto shaqooyin ciidda ka badan. mar kaliya ayaa waxa uu u wada shaqaynayay dhowr iyo 10 shirkadood oo dhammaantood uu engineer ugu qornaa. haddaba shalay toole ayaa nin ka mid ah shirkadaha muxuu ahaayay uu u shaqaynayay maamulayaashoodii nin ka mid ah ayaa shalay toole Twitterka amaba X meeshan aynu naqaano ku soo qoray qoraalkan oo maxay heeday ku sheegay ama beentiisa dadka u sheegayo oo leeyahay qofkaasi waxa uu u shaqeeyaa intaasoo shirkadood ay iska ilaaliya uu been badan yahay saas weeyaan. mar kaliya ayaa wixii shirkadihii u wada shaqaynayay oo dhammaantood ay wada arkeen message-kii qaar markaa xataa interview-gii inta u dhameeyeen doonayeen inay shaqada u bilaabaan ayaa meesha ka soo baxay message ciidda ka badan ay dadkii oo dhameysla isweydaarsadeen. markii dambe waraysi baa laga qaaday, waxa la weydiiyey sida maxay heeday waxaan oo dhan miyaad samaysay? waxa ku jawaabaya ha waan sameeyay laakiin sida wax laga dhigaya ma aha. marka dadku waxa ku maaragtay isdhex wadaan amaba isdhex qaadayeen waxa weeyaan ninkan shaqooyinkan miyuu qaban jiray mise cid kale u dhiibi jiray oo ilaa imika aan la ogeyn. qaarkoodna waxa aabay leeyahay ninkani waa genius buu ahaa oo shaqo xataa si fiican buu interviewga xataa si cajiib ah ayuu uga soo baxayay. laakiin shaqadii ayuu waqti u waayay uu ku qabto shaqada badankeedii. muxuu ahay uu sidaas sameeyay. marka dadka qaarna waxay dhibaato kula jiraan inay shaqo kaliya helaan. ninkanina sida arkaysaan dhowr iyo 10 shaqo oo kala duwan ayuu dhammaantood laan gareeyay oo muxuu ahaayay lacagtoodii waxoodii dhan uu qaadanayay. bal marka maxay kula tahay?